السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسن ميل كستو أجوكتان إن شاء الله مقالكا وحين نقصو قادن دونا برامج كيني تحناها أي برشاد داوين كقيبتي استحي توانات قيبتا waxaan kusoo qaadan doonaa daawada loo yaqaan amoxicillin ama brand name-keeda loogu yeero amoxil waxay ka mid tahay daawooyinka ugu awooda badan uguna waxtarka badan daawooyinka la isku yiraahdo antibiyootiga ama qalajiyaasha. daawadan waxay ku timaadaa kaniini sharoobo iyo waliba irbad. kaniinigeedu wuxuu ku yimaadaa miligaraamyada kala ah 250 miligram iyo 500 miligram. sharoobadeeda waxay ku timaadaa 125 miligram iyo 250 miligram. sidoo kale irbadeeda waxay ku timaadaa 500 miligram ilaa 1 miligram. indication daawadan waxaa loo isticmaalaa ama si lagu daaweeyaa waxa loo yaqaan bacterial infection ama caabuqa ay sababto bakteeriyada ee markaasi soo weerara qaybo kala duwan oo jirka kamid ah sida xanuunka loo yaqaan tonsillitis ee ah caabuqa ama infection-ka ku dhaca qumanka, xanuunka loo yaqaan bronchitis oo burkiitada, iyo sidoo kale xanuunka loo yaqaan pneumonia ama qawowga galafeeraha oo ay sababto infection-ka ama caabuqa bakteeriyada. sidoo kale jabtada ama gonorrhea, infection-ka ku dhaca dhagaha ama waxa loo yaqaan ear infection, caabuqa ama infection-ka ku dhaca sanka ama waxa loo yaqaan nose infection, sidoo kale caabuqa ku dhaca cunaha ama waxa loo yaqaan sore throat infection, caabuqa ku dhaca maqaarka jirka ama waxa loo yaqaan skin infection, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa daawadan caabuqa ku dhaca kaadi haysta ama waxa loo yaqaan urinary tract infection. daawadan waxaa loo isticmaali karaa dhammaan caabuqyada ku dhaca jirka qaybihiisa kala duwan oo ay sababto bakteeriyada. daawadan waxay ka mid tahay daawooyinka ugu waxtarka badan ee qalajiyaasha. dosage qiyaasta daawadan la qaadan karo. daawadan qiyaasteeda ama qiyaasta la qaadan karo hadba waxay ku xiran tahay qofka da'diisa iyo sidoo kale xanuunka qofkaasi haya heerka uu marayo. daawadani haddii qofka yar uu qaadanayo wuxuu qaadan karaa sharoobo waxaana la siin karaa miligaraamka ama qiyaasta ah 250 ilaa inta u dhaxaysa 125 waxayna ku xiran tahay hadba ilmaha da'diisa. haddii uu yahay ilmo aad u yar waxaa la siin karaa sharoobada miligaraamkeeda uu yahay 125 miligram. haddii uu yahay ilmo xoogaa weyn waxaa la siin karaa miligaraamka 250 miligram. haddii uu yahay qof weyn wuxuu qaadan karaa kaniiniga miligaraamyada kale ah 250 miligram ilaa 500 miligram. haddii qofka xaaladiisa ama xanuunka uu hayo uu zaid u badan yahay oo haddana qof weyn uu yahay wuxuu qaadan karaa irbada ama waxa loo yaqaan injection-ka miligaraamyada kale ah 500 miligram ama 1 miligram. hadba waxay ku xiran tahay qiyaasta uu qaadanayo xanuunka uu hayo heerka uu marayo. balse caruurtu iyagu irbad iyo kaniini midna ma qaadan karaan. waxaa wanaagsan ilmaha hadduu ilmo yar yahay in markaasi la siiyo sharoobada. side effect-iga ama dhibaatooyinka ay keeni karto sidaa wada ognahay daawo kasta waxay leedahay dhankeeda xun iyo dhan wanaagsan. daawadan side effect-geeda waxaa kamid ah qofka inuu isku arko af qaleel ama afka oo qalalaya iyo mararka qaar inuu isku arko lablabo laakiinse wax saa usii badan maahan. daawadan sidee u shaqeysaa? daawadan waxay u shaqeysaa horta marka hore in bakteeriyada ama caabuqa soo galay jirka ama jeermiska ilma aragtida ee jirka soo galay inay markaasi istaajiso oo ay markaasi xanibto, iyo sidoo kale inay markaasi joojiso in caabuqaas jirka soo galay ama bakteeriyada jirka soo galay inay markaasi ka joojiso inay isbadiso ama inay sii faafto oo jirkii meelo kale ama meelo kale inay ku sii faafto oo ku sii badato. daawadan haddii la iska badiyo maxaa dhacaya? haddii uu qofku iska badiyo miligaraamka loogu talagalay ama miligaraamkii la rabay inuu qaato miligaraam ka badan hadduu qaato ama haddaan si kale u dhaho qiyaastii loogu talagalay qiyaasaan ahayn hadduu qaato qofkii wuxuu dareemayaa labolabo ama matag. sidoo kale qofkii wuxuu isku arki karaa shuman, murqaha oo xanuuna, iyo sidoo kale inuu isku arko daal fara badan iyo qalal afka ah. haddaba daawadan waxaa wanaagsan qofka qiyaasta loo soo qoray oo dhakhtarku usoo qoray maahan inuusan qiyaas ka badan qaadanin oo intuu dhakhtarku dhahay qaado inuu qaato. kaydin lagu kaydiyaa meel heerkulkeedu u dhaxeeyo 25 ilaa 30 degree. contraindication ama dadka ay mamnuuc ka tahay inay qaataan daawooyinkan ilaa inay dhakhtar la tashtaan mooye. daawadan waa ka mamnuuc inay qaataan amase waa in ay dhakhtarkooda la tashtaan inta aysan qaadanin ka hor si aysan dhibaato caafimaad ula kulmin. haddaba haddii aad tahay qof qaba allergy amase xasaasiyad, sidoo kale haddii aad tahay qof qaba xanuunka neefta amase waxa loo yaqaan xiiqda amase asmada
ama haddaad tahay qof qaba xanuunada ku dhaca wadnaha, ama sidoo kale haddaad tahay hooyo uur leh ama hooyo ilmo nuujinaysa. Dhammaan xaaladahani haddii aad tahay qof qaba, waa in dhakhtarka aad la tashataa intaadan qaadanin ka hor daawada, si dhakhtarka uu markaasi haddii daawadan ay ku anfacaysa aad u qaadataa, haddii kalena daawada mid u dhiganta uu dhakhtarka kuugu bedelaa. Muuqaalkeeni maanta intaasuu ka yahay. Haddii aad waxun ka faa'iiday la wadaag asxaabta. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Haddii aad horey noola joogteen laagta nagu dhiirigeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.